السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء شبكة عالمية لقى برت علمية التكنولوجيا جودها انتي سالوا قناة تشمال وأنا أمين عبدية. موضوع إن ما توحى قان دونا سيد كحوش لنا ينبات كاتكين لهاد أكون كات كل هذا فيسبوك waxaan ogsoonahay maalinba maalinta ka dambaysa waqti ka dambeeya in Facebook ay adkeynayso akoonnada ama shabakadeeda loo yaqaan facebook.com inagoo taa ogsoon ayaa haddana waxaad maqlaysaa cabashooyin badan ay ka muujiyaan macaamiisha Facebook akoonnada ay ku leeyihiin shabakada Facebook oo ay ka mid tahay in akoonnadooda laga jabsado akoonnada loogu soo taageerayo waxaan raalli ka ahayn iyo sababtoo kaliya in ay ugu soo galo ama ay loo soo shargareeyo video aan raalli ka ahayn. maanta waxaan kusoo bandhigi doonaa casharkeenan fideogan amba mawduuceenan dhowr dariiqood kaga dhigan kartid akoonka aad ku leeyahay Facebook complete private mid adiga ku khaasa oo ay ka mid tahay inaad taginka amba waxa lagu soo taageeraynayo aad controlshid ayna cidi kula arag haddii lagu soo taageereeyo oo profilekaaga soo gala ama timelinekaaga ama qof kale una arag oo aad si adiga khaasatan ku gaara aad u aragtid. waxa kale oo insha Allah casharkeena ku soo bandhigi doonaa waxa weeyaan inaad every month taasina advice every month ama every 2 months aad maalin ka bedeshid passwordkaaga si uu u adkaado ama uu si xoogeysto amniga ama securityga account-kaaga waayo Facebook maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo si adkeynaysa ayaa haddana haddii one time vulnerability laga helo account dhowr ay qaadan karto hackerska ama ay qaadan karaan hackersku. waxa kale oo insha Allah aan casharkeena ku soo qaadan doonaa waxa weeyaan inaad isticmaashid passwordo adag ama complex passwords kaas ay kamid tahay inaad xarfo symbols iyo dhibco israaciso tusaale ahaan oo kale Soomaali oo kale inaad dhex gelgelisid lambaraan iyo symbols ka / inverted comma saas aad raacisid ayaa muhiim inaad isticmaashid passwordadaas waayo inta ugu badan xagga ilaa haddan laga jebin karo oo waliba khaasatan bulshada Soomaali hackersku ay yaqaanaan ay tahay in Python ay isticmaalaan amba script Python kaasoo ay u isticmaalaan dictionary ay ka baarayaan account-kaaga passwordkiisa salaashligeed account-kaaga passwordkiisa si aan loo helinba inaad isticmaashid password adag oo lambaran iyo xarf ay ku jirto si aan liiska looga waayo dictionary ay isticmaalayaan. waxa kale oo insha Allah aan ku baran doonaa casharkeenan waxa weeyaan saad u control lahayd information-kaaga markastoo Facebook account samaysanaysid waxaa jira inaad account-kaaga aad details ka qaado oo xagga degan tahay email-kaaga lambarkaaga family-gaaga relationship-kaaga waxaas ay ku jiraan detailskaas waxa ugu muhiimsan lambarkaaga iyo email-kaaga haddii la helo vulnerability-giisa ayaa fududaanaysa oo inta Facebook account waxaad ku xidhiidsatay Facebook Gmail aad leedahay Gmail-kaas ayaa fududaatay in la jebin karo Gmail-kii soo jebinayaan verification bay soo dirsanayaan si verification soo dirsadaan markay forget yiraahdaan verification soo dirsadaan hore ayay ka isticmaalayaan account-kaaga salaashligeed saad email-kaagana aad u qarsan lahayd lambarkaagana aad u qarsan lahayd ayaan insha Allah isaana ku soo bandhigi doonaa casharkeenan daawasho waxaan warantii soo kicina wax weeyaan browserka aan ka galayno shabakada Facebook oo Chrome Facebook Google Chrome okay Facebook ayaan ku qoraynaa okay markii uu noo soo baxay enter ayaan siinay okay account-ka hore iskaga sii jiray mar hore ayaan test ku sameynay markaas laajligeed account-ka hore iskaga sii jiraa Gmail login ayaan ku sameynay okay account-kan haddii aan idin sheegan bogsiis in account-kan aan la isticmaalin waayo account jira ma aha waayo ku testaan ku sameynay weeyaan. okay marka ugu horeysa uu saan kugu soo baxo shabakada ay saa kugu soo kacdo waxaan sameynaa waxa weeyaan inaan button-ka hoos soo jeedno si aan shabakadii ama security-ga aan u galno waayo waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa privacy-ga inaan security-giisa ama private aan ka dhigano account-nadeena Facebook si aan looga jabsan ama u yaraato probability-ga lagu jabsan karaa. okay
marka uu saa buttonka log out aad ka samaysid markaad ka baxaysid Facebook aad soo kugu soo baxo waxaad sameynaysaa setting ayaad tegaysaa markuu kugu soo baxo markiiba waxaad tegaysaa waa settingka okay settingka ay toos inoo geenayaa marka uu settingka ku geeyo waxa kugu soo baxaysa waxa weeyaan pageka settingkiisa ah oo account-kaaga xagga security-giisa iyo time tangiisa privacy-giisa block-kiisa aad ka maamuli kartid uu yahay okay marka uu saan kuugu yahay waxaad markiiba tegaysaa waa security-ga waxaan u baahanahay okay chemical don't show okay sorry waa colorka teamska ay bedelay xagga computerka marka markii uu saa kuugu soo baxaba waxaan sameynaynaa waxa weeyaan ugu horeyntii log in alertgaas ayaan tegayna waxa weeyaan login alert wuxuu kugu sameynayaa wuxuu notification buu ku ogeysiinayaa amba message kugu soo dirayaa mar walba waxa weeyaan markii account-kaaga Facebook laga galo device ama qalab kale computer kale ama mobile kale ama laptop kale ama tablet iPad ama Samsung laga galo ayuu waxa uu message kugu soo dirayaa xaggii laga galay device-ka la galay operation system ama system-ka ku jira macluumaad saas ayuu message ahaan kugu soo dirayaa email-kaagii aad ku samaysatay Facebook haddii aad number ku samaysatayna waa numberka ayuu message ahaan kugu soo dirayaa kolley ma tijaabin mobile Facebook mobile lagu sameeyay in notification-ka kugu soo dirin laakiin email-ka ayuu kugu soo dirayaa wuxuu ku leeyahay marka get alert when anyone logs in your account and new devices-ka marka device-ka markuu kugu sameeyay mar walba wuxuu kugu taagayaa haddii aanad hore u isticmaalin don't get notification marka get notification ka dhig email-kana sax xagga tigta don't get email alert oran waxaad tiraahdaa email login alert sida email-ka aad isticmaalaysay kolley wuu qarsoon yahay email-ka laakiin email-ka aad isticmaalaysay ayaad ku samaysanaysaa kabacdi login approve-kana waxa uu yahay isagu waa mid ka mid ah security-ga amba lakabyada security-ga lagu adkeeyo oo ah in uu yahay extra layer of security lakab ama ama waxa weeye derbi kale oo aad kusii adkeyn kartid account-ka Facebook aad ku leedahay waa option-kan uu ku siinayo kaa waad isticmaali kartaa haddii kalena waad iska dhigi kartaa kuwana waxaa lagaga baahaya haddii aad phone-ka isticmaalaysid mobile aad ka isticmaalaysid oo code generation abis passwordska oo mar walba markaad passwordka abis application-kan Facebook markaad isticmaashid marka aad saa u isticmaashid login adoona oo markaad net ka bixin marka dambe hadduu qof kaa qaado oo kale uu sii geli karaa uu sii isticmaali karaa trust contact-ga waa aaminaadi macnaha ciddii kula soo contact garaynaysa oo kula soo xiriirisay waxa kale ugu muhiimsan waxa weeyaan where you login kan ayaa ugu muhiimsan oo in aad ku ogaanaysid haddii aad ka shakidid shabakada account-kaaga Facebook aad ku leedahay shabakada Facebook uu laga xaday oo kale ama aad qof kula isticmaalo kale haddii aad ka shakidid xagga aad ka ogaanaysid ama aad ka warqabtid ama aad kaga warhayn karsid waxa weeyaan account-kaagaasi waa qaybtan oo where you are login wuxuu ku sheegay even xataa device-ka laga isticmaalay system-ku ku jiray qalabkaaga laga isticmaalay ma computer buu ahaa ma mobile buu ahaa mobile-ka ma Android baa ku jiray ma iPhone buu ahaa iOS baa ku jiray mise mobilada kale jira oo operation system-ya kale lagu duubay oo kale ayaa laga isticmaalay ay ku tusayaan waxa weeyaan wuxuu ku tusaya waxa weeyaan saan hore u sheegnay horta laba ay kala qaybinayaan waa phone Android-ka ama mobilada kuwa ku sheegaya iyo ka desktop-ka oo laptop-yada ama computer-radan caadiga PC-ga oo laga isticmaalay oo ku leeyahay last access wuxuu ahaa labadii duhurnimo ee maanta oo mar aan testing sameynay ahayd oo waxa laga galay waa location-ku waa Hargeysa Soomaaliya approximate-ka device-ka waxa weeyaan waa Windows 10 baa ku jiray device-ka ama computer-ka ama agabka laga galay oo Windows 10 ayaa ku jiray Android-kana mar ayaa laga galay oo markaan testing sameynay waxa laga galay waxa weeyaan Facebook today maanta koodii duhurnimo location-ka Hargeysa ahayd IP address-ka xataa uu ku sheegayaa even xataa kan uu ku sheegay IP address-ka laga galay kan uu ku sheegay IP address-kiisa waxa kale uu ku sheegay Android-ka laga galay version-ka ku jira oo 4 ahaa kana aad buu muhiim yahay marka aad ka shakito qof xagan ay ku soo dhigay xagii laga galay xataa even browser-ka laga galay oo ku soo sheegaya saad ogsoonatid in laga galay Facebook-ka location-kiisa
waxaa kale oo jira privacy policy wax la yidhaha ama privacy oo ah nidaamka ama private si aad uga dhigan lahayd account-kaaga Facebook oo uu ka mid yahay cidda arkaysa timeline-kaaga iyo cidda kula soo xiriiraysa iyo cidda adhowtale arkaysa wixii aad soo post garaysay. waxa ugu horeeya waxa weeyaan who can see my stuff. who can see my stuff waxaad ka dhiganaysaa waxa weeyaan haddii aan sii sharaxno waxa weeyaan wixii aad soo post garaysay yaa arki kara. ima sawir baad soo post garaysay, postigaas sawirkaad soo post garaysay yaa arki kara, ma asxaabtaaga oo keliya arki karta, ma adiga oo keliya arki kara, ma waxa kula arki karaa asxaabta iyo kuwa asxaabtaada ugu sii jira ayaa arki kara. marka oo optionno uu ku siinayo oo ku ilaalinayo security-ga ama amniga mobilka account-kaagan, waliba uu si privately aad u isticmaali kartid. okay, friendskaas waxa uu u dhigmaa ama micnaheedu tahay waxa weeye public, macnaha asxaabta ugu jirtay iyaga ayaa arki kara. ima waxa arki karta oo keliya asxaabtaada oo keliya. taa ka kaalay waxa kaloo arki kara waxa weeyaan adiga oo keliya. saddexda option ku siin karaa, customs ay ku siin karaa. laakiin waxa kuu muhiim ah postiga marka aad soo posti garaysay asxaabta, waxa laga yaabaa qaar asxaabta ah oo laakiin friend list-kaaga kugu jiray inay jiraan, kuwaas si ay u arkaan hadhow tala friend list-kaaga friend request ay kusoo dirsadaan. waxa kaloo ku jira waxa weeyaan who can contact me, ayay ila soo xiriiri karaa. waxaa jira dad markaad adoona ku dirsan amba friend list-kaaga kugu jirin haddana message kuu soo diri karaa, oo message-kaasi uu kaaga imanay qof aanan friend request-gaaga kugu jirin. sala actually-geed ifan uu kuu soo diri karaa qof kale message si tusaale ahaan oo kale friend request baa kuu soo dirsaday, kamaad aqbalin, message buu kusoo raaciyay, wuxuu ku yidhi iga aqbal friend request-ga, waayo waa muhiim inaan wada kulanaa amba aan chat wada sameynaa. saasoo actually-geed oo kale friends ayaad kaga deysan kartaa. haddii kale aanad rabinna waxaad intaad bedeshay ayaa waxaad ka dhigan kartaa friends only, friendskaaga oo keliya ay kula chat garayn karaa ama chatan wada samayn kartiin. markuu saan kugu soo baxo waa optionadii waa kuwan optionna everyone baad ka dhigan kartaa, friends ayaad ka dhigan kartaa, everyone kasigadiisa waa ku muhiim. okay, ka gudub. waxaa kaloo jira kan who looks me. macnaha detailskayga, sida tusaale ahaan oo kale emailkaaga oo kale iyaa arki kara, ma friendskaaga oo kaliya arki kara, ma waxaa ka arki kara oo kale asxaabtiis ama si public ah ayaa loo arki karaa. waxa kuu muhiim ah markaas inaad email laba option ay ku siinayaan kani, marka inaad ku deshitid friends oo kaliya, si public ah aanad ka dhigin, everyone aanad ka dhigin, ama friends aanad ka dhigin, kaliya aad ka dhigatid friends oo kale. waa kuu muhiim waayo emailkii saddex option ayuuna siiyey. haddii even xataa ay ku jiri lahaa only me ayaad ka dhigan lahayd, laakiin ka ugu dhow waxa weeyaan waa friend list-ka. waayo emailkaaga tusaale ahaan oo kale waxaad ku samaysay email ah tusaale ahaan oo kale amin123@hotmail.com ayaad ku samaysay account-kaagan Facebook. marka uu qofkii aboodkaagii galo waxa uu si markiiba arkaya Facebook-kaagii. hackers oo kale waxay arki karaan emailkaagii markaas si dhib yar ayaa loo jebin karaa. hotmail oo kale way ka security gaaban tahay, tusaale ahaan oo kale si tusaale ahaan ku siinaya waxay derbiga ama macnaha security-ga Facebook waxa ka jilicsan security-ga hotmail. marka emailkaagiiba qofkii arkay, ma qofkii marka uu emailkaagii arkay ama uu helay waxa uu jebin karaa hotmailkii. marka uu hotmailkii uu jebiyo waxaa dhib yaraanaysa inuu helo Facebook-gaagii account-kiisii, si dhib yar aanu jebin karayn oo si verification ah ugu dirsan karo forget password, kabacdina verification u dirsan karo cadday. waxaa kaloo ku jira user numbers oo phone number-kaagii ah. phone number-kaagina waa kuu muhiim inaad friends aad ka dhigataa, waayo sidii emailkaaga oo kale ayaa lagu samayn karaa verification. time and timeline-ka ayaan gelinaa oo isaguna mid aad u muhiim ah khaasatan bulshada Soomaaliyeed. waxaad aragtaa badanaa waxaan aragnaa shabakado ay Soomaalidu ka leeyihiin oo luqad Soomaaliya ku baxa, kaasoo ay soo dhigaan wax togan. waayo sidaan tusaale ahaan oo kale daawo hebel waxay sameynaysaa siyaasa adigu aflagaado wax soo dhiga.
wixii ayuu shabakadii lagu soo taagereynaya. waxayna isticmaalaan akoono falis ah oo tusaale ahaan oo kale gabadh magaceedii oo kale ayay intay soo dhigaan iyo sawirkeygii ayay kugu soo taagereynaya. waa qof isticmaalaya shabakad togan saa wuxuu kugu soo taagereynaya postigiisi say u arkaan asxaabta adiga kugu jiraan laakiin isaga aan ugu jirin, ay u ballaarato wixii macnaha oo postigii ay dad badan u arkaan. salaashiligeed waxaad kaga hortegi kartaa waxa weeyaan who can add things to my timeline, ayaa ku dari karaa. timelineka waa profilekaaga, soomaalida waxay u taqaanaa profile laakiin timeline ayaa loo yaqaanaa si ay shabakada facebook ba u taqaano. timelineka waa profilekaaga, marka la galo yaa arki kale waxa postiga ku yaal sawiraantaadii iyo postigaad farxado ama hambalyooyin aad u dirayso qof kale ayaa soo posti garaysay, postigaagaas ayaa isku daba xiga. laakiin haddii lagu soo taagareeyo postigii taagiino timelinekaaga ay soo gelaya. salaashiligeed waxaad ka dhiganaysaa edit intaad samaysay ayaad only me ka dhiganaysaa, waayo wixii sidaan lagu taagareyn ama wixii postigaagii aanan qof kale inu kugu soo taagareyn wax postiga. optionna waxa uu ku siinayaa friendskaaga oo marka hore kugu taagnaa iyo only me ayaad ka dhiganaysaa. markaa waxaa kaloo jira kan kale waxa weeyaan review ayaa arki kara oo macnaha tagga marka lagu soo sameeyo macnaha notification ay soo diro oo kale ogeysiisa. who can see things in my timeline ayaa arki kara timelinekayga waxa ku jira oo thingska macnaha timelinekaaga waxaa jira sawiraan aad khaasatan adiga kuu khaasa oonad si storage oo kale aad ugu keydsatay aanad rabin oo kale si in ay dad ay kula arkaan, iyo qaar si public aad usoo taagaraysay. markastoo profilekaaga la galo waxaa la arkaya sawiraantii kugu jiray iyo wixii aad soo posti garaysay. marka qofka arkaya waa ayo, ma only me adiga keliya ay arkaya mise waxa arki kara friendskaaga? only me ayaad ka dhiganaysaa, waayo si timelinekaagii postigii lagu soo taagareeyo oo keliya adna aad aragtid only me ayaad ka dhiganaysaa. kan ka bacdi kanna who can see other postigasa. postigan markaa wuxuu kaga duwan yahay kan waxa weeyaan taageerkii wixii lagu soo taagareeyay, laakiin kan waa kuwii aad soo dhigtay adigu. marka kan ayaa waxaad ka dhiganaysaa only markaad ka dhigtid close node. kabacdi waxa kaloo soo haray who can manage people and add and tagging suggestion. waxa lagu soo taagareynaysaa aad controleysaa ama manage aad u sameynaysaa. wuxuu ku leeyahay preview tagging in your add friend post before your tagging. notification iyo soo dir macnaha marka uu kugu soo taagareeyo qof notification qofkaas hebel wuxuu kugu soo taagareeyay waxa click si wixii wax taban ma yahay okay timelinekayga igu daa. haddii uu togan yahayna remove de si uuna kugu sii jirin waqti dheer timelinekaaga. kuwana adiga is akhrisan kara oo waxa who tagging in oo muhiim ah, laakiin taas muhiimka iyo waa intaan soo sheegnay. waxa kaloo aan ku dari karnaa oo ah in muhiim ah inaad ka warqabtid facebook account-kaaga inaad every month aad ka bedeshid account-kaaga passwordkiisa bil walba maalin, si aad ula socotid waxa macnaha security amniga account-kaaga oo aad mar walba sii adkaado. waayo every hackers waxay raadiyaan mar walba meelaha uu ka nugul yahay facebook. marka passwordada aad isticmaalaysidna waxaan igula talin lahaa in aad u noqdo password xaraf iyo number iyo dhibco ama symbols ay ku jiraan, sida tusaale ahaan oo kale faarax 21305 dhibic hakad calaamad su-aal waxaad raacisid si uu adkaado. waayo waxay isticmaalaan hackerska oo imika badanaa la isticmaalaa oo xagga uu ka jilicsan yahay ay tahay inuu wixii passwordkaagii marka hackerska ay raadinayaan way isticmaalaan waxa baalkii dictionary ah. dictionarygaas markaa dictionarygaas laga yaabaa in laga heli waayo account-kaaga passwordkiisa si khaasatan iyo si guudba, ama ay time badan ku qaadato qofkii markuu hackerskii uu raadinayo passwordkaagii uu time badan ku qaadato inuu raadiyo, oo sometimes isoo wixii kala bar socdaanba dictionarygiisii kala bar socda uu computer ka baktiyo amba internet connectionkiisu ka baxo oo dib ugu soo noqdo oo kale. actually password adag ayaa la isticmaalaa. bil walba ka warhay oo ka bedel passwordka. haddaad bil kaga bedel weydid waxaad ka bedeshaa 2 biloodba mar, even haddaad 2 bilood aad kari weydo 3 bilood, even xataa
toddobaadkiiba mar haddaad bedeli kartid adiga ayay ku muhiim tahay oo ay kasii fiican tahay bisha aad bedelaysid. intaas ayaan maanta casharkeena ku joojin doonaa.